Cabdidin maxaa abdi in kamid ah dhalinyarta gobolka Nugaal ama magaalada Garowe runtii hadii aan ka hadlo doorka ay maanta aan dardarta xoogan loogu jiro 8 January doorashada dhici doonta ka dhalinyar ahaan waxaan doonaynaa cidii ma taqaanaa cid allaale cidii u qalanta inay hananto kursiga cid allaale cidii ma taqaanaa maadaama ay dhalinyar farabadatay ay ku nooshahay Puntland guud ahaanba ma taqaanaa cidii ma taqaanaa isleeyahay dhalinyar ay maanta wax taraysa dhalinyar ay shaqaaleysiinaysa dhalinyar ay fursad u abuuraysa in ay kursiga noo qabato qof si daacad noogu shaqeeyo ka amni ahaan wadanku ma taqaanaa meelaha wadanka magaalada maqan maxaa la yiraahdaa ii sheeg guud ahaanba amniga magaalada Puntland in ma taqaanaa qofka si guud oo caan wax uga qabanaya baanu doonaynaa danaynaynaa hadaan dhalinyarnahayna أنا مقعيقو يحي عبد الرحمن محمود جبريل كان مداه دلينتا كنا القبل كنا قال قراهن عاصمة مملكة بوتلاند قروة رناهن توحن رواينا هل كان كعبره فكر كي يكون أدن دورشة كوسو أدن بوتلاند رناهن تي وحن تغير خاص وهي مشرح عثمان رناهن تينا waxaan ku taageeray waxqabadkiisa hore uu dalka u soo qabtay waxqabadkaas oo uu ka shaqeynay oo ahaa amniga run ahaantiina aanu ku amaanan yahay qof walba markuu isu soo sharaxayo oo rabo inuu hoggaan qabto wax lagu qiimeeyaa CV-giisa hore asad waxaan ku qiimeynayaa shakhsi ahaan CV-ga uu dalka u soo qabtay horumarka amniga dalka gaarsiiyay la dagaalanka argagixisada run ahaantiina waxa ii tahay sharaf iyo maamuus inuu Asad Cismaan uu yahay musharax u taagan madaxtinimada Puntland waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada Puntland inay fiiriyaan codka dhalinyarada inay fiiriyaan codka shacabka inay fiiriyaan mustaqbalka iyo ayaha uu dalka hiigsanayo ayna doortaan musharax Asad Cabdullaahi Cismaan run ahaantii waxaan halkan fariin uga deerayaa dhammaan dhalinta Puntland waxaan leeyahay waxa la soo gaaray waqtigii aad ka baxi lahaydeen shaqo la'aanta waqtigii aad ka baxi lahaydeen ina hoos u fiirisaan yani qof ina waxaan tareen run ahaantii waxa taagan tihiin xilligii aad shaqaysan lahaydeen xilliga aad dalkiina horumar gaarsiin lahaydeen waana ina waqtigan ka faa'iideystaan waxaana fariin halkan uga dirayaa in musharax mudane Asad Cabdullaahi Cismaan uguna dardaarmaya inuu meel ku ogaado inuu mar walba niyadiisa ku hayo dhalinta taageertay dhalinta yani codkooda u muujisay dhalinta meel walba u martay waxaana leeyahay waa maasantahay mudane murashax raxiim magaciigu waa Jaamac Cabdiraxmaan Maxamed ku dhaqan magaalada Garowe kamid ah dhalinyarada ku nool gobolka Nugaal anagoo ku hadlay afka sportska gobolka Nugaal waxaan taageerayaa ninka Siciid waa jarnaal Soomaaliyeed waxaan isleeyahay maanta fikirkaygu Puntland waxa u baahan tahay in askari ah oo jarnaal ah oo ciidan ah oo ka warqabi karo baahida ciidanka leeyahay oo ciidanku leeyahay ciidankuna waa booska ugu muhiimsan ee dawladdu ku dhisan tahay haddii dawladdu ciidan lahayn raacsan dawladdu toosan noqon mayso waxaan rajeynayaa insha Allah in Siciid cod kale siiyo Asad Cismaan